أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي سودا ولادين إن شاء الله بإذن الله الكريم وحنا ندين لبدا عشرين امتحانها وكساب سنة كوي بوكسكا وحنا بلاودونا إن شاء الله 10 كيني كواد 10 كان 10 كوري وحنا إذا كوصاب من قابك أو كلي كرتان أما أكسو دكسن كرتان سوفت ويركا 10 كيني كواد وحنا خندونا 3 دقيقات هو وين كوي بوكسكا لوبرتو كوي كتها سيلسكا سيرفيسكا iyo manufacturingka إن شاء الله 10 كان 3 أو كساب من دقيقة sidoo kale qaybteeni koowaad qaabka loo create garay ama loo abuuro company-ga biidnillahi alkarim ka faa'iideys wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah awal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhamaantiin soo dhawaada walaalada biidnillahi alkarim waxaan rabaa maanta inaan idin wadaaga ama bilaawna casharkeeni koowaad ee quickbookska waxaan ku bilaabaynaa waxay tahay inta aan ku qaadan doono saddexdan ay ka kooban tahay service sales iyo manufacture biidnillahi alkarim dhamaantiin soo dhawaada الله سبحانه وتعالى waxaan ka bariyaa inaan wax ka badan ku kala faa'iidno intaana qaanuun idin la wadaagayaa sidoo kale waxa jirta kuwa buuga labo inay noqoto marna online ahaan marna offline ahaan inuu qofka uu shaqeyn karo kuna baran karo marka insha Allah aan offline ka soo bartay online ka YouTube badan waa kala ma sha Allah la soo geliyaa jirto marka insha Allah hadda offline ka rabaa inaan idin la wadaago inta aan ka soo bartay waxaan rajaynayaa walaalo badan u baahnaan ay ka faa'iideystaan waxa jirta macalinkeena si fudud oo inoo soo baray bil gudaheedna aan ku soo barnay alxamdulillah saddexdan steebo waxa kale oo rajaynayaa qaabka loo create garay wax walba way ku wada jiraan inay walaalihii ay kan iga faa'iideystaan ku xiran page-kayga biidnillahi alkarim marka dhamaantiin soo dhawaada caawan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago qaabka loo create garay ama loo abuuro akoonka oo kale aad iyo aad u sahlan yahay biidnillah waxaan ka bilaabi doonaa service-ka ka bilaabeena qaabka service-ka loogu shaqeysto ama loo sameeyo loo diiwaan geliyo marka insha Allah quickbookska waa kana uu ii furan yahay hadda waxa jooga homeska waxba ma taawanin waxaan dhan insha Allah waxa ku baran doonaa marka fandhig soo gaarno step wada baran doonaa mid walba iyo wuxuu qaabilsan yahay iyo wuxuu yahay waxa rabaa cashirkaan caawa inaan idin kula wadaago sida loo create garay ama loo abuuro account inaan idin la wadaago waa ka markaan ugu horeey waxa soo abuureena account waxa tagaysaa file marka tagtid waxa dooranaysaa new company inta badan waxa jirta insha Allah cashir kale oo hadli doona mar account-ko abuurano kale ama ay company hore u shaqeyn jiray qaabka loo sameeyay exist markuu hore u jiray step soo leeyahay jirta insha Allah macallinkeen inuu la wadaagay laakiin hadda anaga waxa baranaa qaabka loo create gareeyo ardayna way anfacaysaa insha Allah markaas baranayo qof markaas rabo inuu ku shaqeystana way anfacaysaa si fudud waa ana qaabka oo soo sameeyo maadada methodology-go kale buug iyo wax dhan ka sameeyo concept ya ka bixiya macalinka inta siim kan hay aad iyo aadna u farx anoo miis aqoon laakiin ani maskaxdii amniyadeeda asaas in qaabkaas u sameeyo si fudud dadka u fahmaan anagoona buug isku daalin aqris isku daalin waxaana se practicalna u barano hadda waa qoona waxa sameeynaa waxay tahay new file ay tagay kadib waxa ka doortay new kadib waxa dooranaa marka new-gaas doorto lacala hadii asku qaldo kale hal mar waa idin kugu celinaa waxa doortay file kadib new company dhahay new company marka meeshaan ay ku qoran tahay start express start ayaa dooranaya hadana kadib waxa ii soo baxayso meeshaan ay ku qoran tahay glad you are here tell us about your business so we can give you the right tools for what you do waxa sameyn lahayd ana inta lagu sii ama markaas ku haboon qofku markuu wax create gareenayo waa kana hadda ina create gareen ama abuurna waay wax ugu muhiimsan hadda waxa waay saddexdan xabo ma ka tagi kartid ma abuur kartid ana saddexdan gelin wax muhiim waxa ku ogaanay calaamad balaaska amal oo gaduudka ah marka waxa sameynaynaa hadda company-ga magaciisa kale magac hore waxa ahaado hadda waxa sameynayaa magac maxaa ka dhigaa أنا بكمبني كدينا إن شاء الله أنا بكمبني وكلا كدينا industry marka dooranaysid meeshaan ay qoran tahay help me juice doorane kadib marka dooratid intaana wax noqon karaan company-gaaga ama wuxuu ku shaqeynayo marka hadda waxa sameeynaa waxay tahay meesha ay qoran tahay general product ayaa dooranaya ileen anaga basic-keen waxa waay ama waxa base inuu dhigaa inaa sameeyno general product oo kale waxa kale qaadan kartaa general service oo kale hadda general product ka qaadanayna kadib waxa sameeynayna
okay adena general product discount waxaan oo soo galaya income account saleska wax walba oo ku saabsan marka insha Allah expense oo kale was purchase-ka inta ku jirto wayna soo wada galayaan okay adahana kadib hadda waxa soo sameeyay waxa kale soo doortay industry-ga ama meesha aaro parts-ka ina ka sameeyo ganacsiga oo kale sidoo kale meeshaan waxa waa business-ka noocuu yahay solo proprietorship miya partnership miya cooperation miya way badan yihiin inta badan saddexdaas soo baranaa marka insha Allah hadda waxa sameeynaa midkaana inta badan Soomaalida ku shaqeystaa partnership-ka ama LBB-ga oo kale partnership-ka saa dooranayna kadib waxa sameeynaa business address-kaaga hadaarta magacaaga ka dhigan kartaa anaga inta badan ama markaas address-kaaga business-ka oo leeyahay kan muhiim ah saddexdaas muhiim inaad soo buuxiso hadda soo buuxinay waxaan daarto agtay kartaa daarto sameyn kartaa city-ga maxaa waaye marka hadda company joogto kale waxaan qasab ku tahay inaad buuxisid Mogadisho meesha aad markaas aad joogto aad sameynaysid state-ka anaga state-keena meesha ma ku jiro Mareykan waaye zip-ko kale 252 waa anaga koodkeena hay address-a dooranayna meesha maxaa yeelay anaga ma ku jiro wadankeena address-a dooranayna internet telephone number-ka qoree telephone number alaala mid ka hor waa aado binkaaga waxa gashanaysaa waa kaas number-kana soo soo gelina direct inta waad ka kartaa muhiimad saddex hab u horeyso waa kadib waxa dhaha create company meeshaana daqiiqadii qaadanayso ilaa iyo hal daqiiqo camalna qaata laga yaabaa way noo soo create gareysme markay noo soo create gareysmato toos markaas waxa bilaaban kartaa inaad sameysto akooman ama akooman aad u waratid hadda waxa rajeynayaa inaad fahanteen sida ugu sahlan uguna fudud loo soo abuuri karo akoon waxaana muhiim ah business name-ka industry-ga iyo business type-ka saddexdaas qasab waaye maxaa yeelay waxa ku cadeynaysa meeshan gaduudka yaryarka ah arkoon oo ka horeeyo magac oo kala xidibta camal ah hadii aad soo sameysid waxa ku sahlanaanay ama ku fududaanayo ina inta kale aad ka tagi kartid laakiin marka company aad waxa qasab kugu yahay company-ga address-kiisa magaalada ku dhex taalo state-ka zip code-ka waxaasoo dhan ina aad sameyn karto telephone number-ka kadib create company aad dhahanayna create company ka daqiiqad sirto asugay kadib waa kaas hadda waxa sameeynay company ayaa abuuranay insha Allah company marka abuuran intaan waxa way ku soo baxayaan marka waxaan oo dhan waxa laga yaabaa in hoolo badan iyo waxyaabo ku galiyaan hal sameeynin hoostaana soo aaday start walking meesha ku qoran tahay gacanta waa arkaysiina fula start walking waa kana hadda shaqadeena marka si direct inoogu bilaabanaysa waxa soo abuurnay company magaciisana woona soo abuurma kan company hore aniga abuurnaa markaas xanaf company midkaas oo qoran yahay hada company soo abuurnay insha Allah waa isla arkeena company-geena woona soo baxaa midkaan waa kana xanaf company waa soo abuurnay company-geena waa heesanaa marka hada waxa sameynaynaa